كاني waxay ku jiraan halis marxalad taariikhi maraya waad cadayseen khayr Allah idin siiyo waad sheegteen waxay yihiin nimankaas waligiina waa soo sheegi jirteen haddii la idinka hoos qaadi lahaa haddii la idin la garan lahaa haddii la fahmi lahaa annagu maanta waan garanay waan idin la fahamsanahay waa idin la ognahay waa idin ku hor soconaynaa waana idin kula shaqeynaynaa waxaan rabnaa oo maanta la soo gaaray xilligii culimadan mar kasta oo dalkan khatar galo ayaga badbaadin jiray dalkan khatar uu ku jira dalkii aad u diideen idinka iyo culimadii waxay soo bartay iyo kuwii ka sii horeeyay ay u diideen hal qof in laga gaalaysiyo ayadoo dawladda xukuntaay ay Christian tahay maanta wuxuu marayaa oo ogtihiin meel walba la socotaane inta la qaxiyay oo la kaxeeyay oo meel kale la geeyay in intaas Christian ay joogan oo ayagu la taagan oo dhawaan Christianay gaalanahay waxaad ogtihiin intaas oo Shiica inay joogan oo idan waligiin ogolaan maxaa waxaa keenay markay carareen oo dalkoodii laga qaxiyay oo dalkoodii laga kaxeeyay ayaa keenay maanta meel adag ay maraysaa marka halka markay gaadhay dhinaca kale dalkeena abaara ka jiray dhibaata ka dhacday dadkeena baahi haysta waxa la gaaray in la yiraahdo dalka iyo dadkaas dhimanaya cunto looma geyn karo jidadka la xiro ceelasha la gubo waraha laga aaso waxa la gaaray in dadka masaakiinta ee beeraha beeran jiray la yiraahdo 3 jeer baad lacag bixinaysa markaad geed qaadayso markaad abuurayso iyo markaad goosanayso 3 jeer baa laga qaadaya waxay keentay dadkeeni wax 1 milyan oo qof oo Soomaali ah inuu maanta barakacay gudaha dalka waxaan maraynaa marka meel halis oo xasaasan maraynaa markii dalku halistan oo kala galo waxa loo baxsadaa in dadka culimada loo baxsadaa waligeedna saasoo culimada loo baxsan jiray ayaa ka celin jiray cadawga ayaga jihaadi jiray ayaga diidi jiray maanta marka fikradda in la cadeeyo dadka islaamka ee muslimiinta ee Soomaaliyeed diinta loo sheego in saailkaas xooga badan ee khatarta ah ee dadka isku wada qarxinaya eber iska dhigaya laga dhiciyo waa mas'uuliyad saaran ulil amriga ummadan ulil amri wuxuu yahayna waa taqaanaa ulil amrigu kuwa yihiin waa taqaanaa si fiican baad u garanaysaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo kaliya ma aha culimada kowka ahlul hal wal aqdiga ah waa mas'uuliyad inoo wada taala oo ina saaran way marka waxaan u baahanahay mas'uuliyadaas inaan ka soo baxay dagaalka ay dawladdu qaaday ay nimanka kula jirto waa jihaad بالدرجة الأولى هدف كيسو يهي أما أجيد كيسو يهي أجيد إنساني أو لغو بدبادين أيو إنسان كقفك إنسان كأل لغو بدبادين أيو لبع لغو بدبادين أيو عقيدة أمة الصوماليات إيا لا إله إلا الله لغو بدبادين أيو رقن كودي إيا فقه كودي شافعيها إيا علماء كودي إيا تراث كودي أي صور أحلان إيا إسلام كودي لغو بدبادين أيو ومن لغو بدبادين أيو مدنمة أمة الصوماليات ومن لو badbaadinayo dhaqankii ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimadooda intaba waxaan qabaa marka fursad fiican inaynu haysano maanta hadii aynu isugu nimid kulligeen meeshii aad waligii ku dhawaaqi jirteen oo oran jirteen wasay wax u socdaan way qaldan yihiin maanta in la isugu yimid mar hadii la isugu yimid deena dadka hor kacdaan oo hor kacdaan oo calaamadan in hor socdaan aan u baahanahay
waxaa la soo gaaray xilli dadkii Soomaaliyeed ay marayaan سوف ينتهون من حيث بدأنا sidii loo soo socday kolba meel ka soo dhac kolba daw ka soo dhac kolba meel loo soo socday waxay isugu soo shubantay meeshii leedin kaga tagay baa leedin ku yimid diin i'tidaal leh walaaltinimo leh yaqiin leh ikhlaas leh tadarruf lahayn واللي كجرين تواضع له فقيين شافعي أساسي فقيهان هل كاسي باش يسوق سود بشوت وحي كلودن ولو سو غبت waxaan rabnaa marka in halkaas laga wado oo ay culimadii xilkooda is saaraan faafintii diinta la bilaabo si xoog loo bilaabo difaaceedina la bilaabo midnimada dalkeena iyo ummadeennana la xijisiyo hadda aan idin la kaftamay dadku haddii ay soo noqdaan oo jidkiina lagu soo noqdaan dadka soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin imaado aad iyo aad aan ugu faraxsanaan lahaa inaan idinla sii joogo aad iyo aad aan runtii ugu mahadsantihiin xuska mu'tamarka ee sanawiga ah waan idin barakeynayaa ummadda Soomaaliyeed u soo duceeya dalkan u duceeya annagana noo soo duceeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh